بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalyaal ku soo dhawaada muuqaalkan oo aan kaga jawaabi doono su'aal aan isweydiinayno su'aashaasi waxay ku saabsan tahay dawlad ku sheega loo yaqaano Israa'iil ee Yahuuda Sahyooniyada ahi ay ka asaaseen dhulka muslimiinta gaar ahaan dhulka barakaysan ee Falastiin maxaa loogu bixiyay magaca Israa'iil macnihiisu waa maxay yaase la oran jiray Israa'iil ugu horeyn waxaan leenahay magaca Israa'iil waxa la dhihi jiray nabigii Ilaahay ee Yaqoob ibn Isxaaq ibn Ibrahim alayhimus salaam nabi Yaqoob ayaa loo yaqaanaa Israa'iil waxayna ku caddahay Quraanka oo Ilaahay wuxuu Quraanka inoogu sheegay سورة آل عمران كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ربنا وحوري سبحانه وتعالى دمان عنتضو حلال بيو أهيد عرورتي أولي إسرائيل وحي إسرائيل نفتي سكحرم موي مركا إسرائيل ويعقوب وحي يعقوب marka naftiisa uu ka xarimay mooyee waxa kale xalaal bay u ahayd ka hor intaan Ilaahay soo dejinin kitaabka Tawraad ee Nabi Muuse lagu soo dejinin sababtuna waxa weey Nabi Yaqoob in badan buu ka horeeyay nabigii Ilaahay ee Muuse alayhi salaam marka magaca Israa'iil waxa la dhahaa maxay Yaqoob sida ku cad Quraanka caruurtiisa ka soo farcamtayna waxa loogu yeedhaa Banu Israa'iil ama children of Israel waa caruurtii ama duriyadii Israa'iil oo ah Nabi Yaqoob duriyadiisii waayahay hadaba waxaan fahamnay in Israa'iil la dhaho nabigii Ilaahay ee Yaqoob ibn Isxaaq ibn Ibrahim al-Khalil magaca Israa'iil macnihiisu waa maxay diinta islaamka markaan eegno ama dadka muslimiinta ah marka ay fasirayaan magaca Israa'iil macnaheeda waxay ku fasiraan إيل إني تهي الله ولوقت عبرانية أما هبرو أما عبرانية واسكمده لوقت إيل وحلو يقن إلهي ويهود مركي هذا سواحد دهان اللهم إيل إلهيم أي دهان وإلهي وجهدان هل كان المسلمين تدهان محي اللهم أما الله مركا إيل لوقت عبرانية وإلهي مركا إسرائيل ولا بك المدود وماركتي إسوتهي إيل والله إسرانا وأضونك إلهي أما كي إلهي ودورتين أي معنى هذا النقطة سواء حلا معنى تهاي أما أي سو معنى دويهين جبرائيل يا إسرافيل يا ميكائيل إيل بامد بودن بس مدول بإيل كودن بس الله أي لا معنى تهاي ومعنى هذا واحد نقول عبد الله أما عبد الرحمن يا مقعيدا عبديد أي كتران وأضونك إلهي كي إلهي وجعله معنى هذا وسداس النقطة way macnihi Israa'iilna waynu fahamnay hadaba waxaan isweydiinaynaa Sahyooniyada Israa'iil la baxday maxay ugu magac dareen dawlad ku sheega Israa'iil ay ugu magac dareen Israa'iil maxay ula bixi waayeen Juuda ama Yahuuda ama magacyada kale ama Cibraaniyiin maxay ula bixi waayeen maxaa loo doortay Israa'iil sababta loo doortay waxa weeye walaalayaal erayga Israa'iil Yahuuda agtooda wuxuu ka mid yahay ama wuxuu la macno yahay kii ka adkaaday Ilaahay iyo dadkaba kii dad iyo Allahba ka adkaaday xasbunallahu wa ni'mal wakiil waxa lagu sheegay kitaabka Yahuudu iyo Kristaanku labaduba ay rumaysan yihiin ee loo yaqaano Bible-ka gaar ahaan kitaabka loo yaqaano Genesis ee loo yaqaano bilowgii cutubka 12aad faqradda 24 ayaa waxay ka waramaysaa qiso cajiiba Yaqoob ayaa wuxuu musaaraca ama lagdan uu la galay nin habeen oo dhanba islaynayeen bal hadaba ila dhigayso sida ku taala kutubtooda dabadeedna waxaan fahmaynaa sababta dawladda loogu bixiyay Israa'iil wuxuu cutubka 24aad markaasuu Yaqoob kaligiis hadhay nin baana la lagdamay isaga ilaa markii waagu ka bariyay ninba Yaqoob la lagdamay ilaa waagu ka bariyay way cutubka ama faqradda 25aad waxay tiri oo markuu arkay inuusan ka adkaanayn ayuu taabtay godkii bawdadiisa bawdadii Yaqoobna way murkacatay intuu la lagdamayay isagii
macnaha ninkii ayaa bawdadii Yacquub meel taabtay godkiisa dabadeedna wuu murkacday xalay oo dhan habeen oo dhan ayaa lagdanka iyo musaaracadaas ay socotay markaasuu yiri isiida maxaa yeelay waagiba baryaaya isiida buu yiri isna wuxuu ku jawaabay ku sii deyn maayo inaad i barakaysid mooyee kuma sii deynayay laad i barakayso markaasuu ku yiri isagii magacaaga hadda isna wuxuu yiri Yacquub يعني magacaaga ishag Yacquub baa la yiraahdaa markaasuu wuxuu ku yiri magacaaga hadda kadib lama oran doono Yacquub ee waa Israa'iil Yacquub laguma yeeri doono waxa lagu yeeriyaa maxay Israa'iil waayo ilaah iyo dadba waad la lagdantay ilaah iyo dadba waad la dagaalantay waanad ka adkaatay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun wa hasbunallahu wa ni'mal wakiil wa aray waxa weeyaan samada iyo dhulka iyo buuruhuba waxa weyn ay dildilaacayaan Yacquub ayaa wuxuu la dagaalamay maxay dad iyo ilaah labadaba uu ka adkaaday la hawla wala quwwata illa billah marka Israa'iil ayaga agtooda yahuud waxa la macna tahay ninkii ka adkaaday dad iyo ilaah hasbunallahu wa ni'mal wakiil wuxuu yiri faqrada 9 Yacquubna wuu weydiiyay oo wuxuu ku yiri waan ku baryayaa ii sheeg magacaaga oo wuxuu yiri bal waxaad u haybsanaysaa magacayga halkaasaanu ku barakeeyay Yacquub ayaa la barakeeyay Yacquubna meeshaas magaceedii wuxuu u bixiyay Fanaa'el waayo wuxuu yiri ilaah foolka fool ayaanu arkay naftayduna way nabad gashay muxuu jeedaa ma taqaana ilaah foolka fool ayaanu arkay waji ilaahay baan si toos ah ula kulmay oo aan la arkay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun qoraxdiina waxay soo baxday markii uu Fanaa'el dhaaftay isna bawdadii buu ka dhitinayay way halka waxa inooga cadaatay Yacquub ninkii uu la lagdamayay ee ay foolka fool isaga soo horjeesteen ee uu la lagdamayay xalay habeenkii oo dhan inuu ahaa ilaahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun wa hasbunallahu wa ni'mal wakiil ala al-yahud ninkaas waxay ku sheegeen inuu ahaa ilaah bal hadaba aynu dhageysano yar waxba ha gariirin yahuudu waa shayaatin wana malcuunin u fiirso waxay dhaheen Yacquub habeen oo dhan ayuu la lagdamayay ninka waxay ku sheegeen inuu yahay Allah waaye ninkiina wuu ka adkaaday ninki ilaah baa laga adkaaday hasbunallah markaas loo bixiyay Israa'iil oo macnaheedu tahay dad iyo ilaah labadaba wad ka adkaatay markay la bixin yahuuda sahyoniyada Israa'iil ay la bixin macnaheedu waa maxay kuwii ka adkaaday dad iyo ilaah والعياذ بالله رب العالمين ما فهمتين سببت إلهي مر والبا ودليه يهود ما فهمتين سببت أي مر والبا عقد هوست يهود أي جيران ما فهمتين سببت مر والبا يهود أيهين ومضى أما قرون الدون كأن إلهي وكان قرومها اللي يقول نعبيه عدو ولا بقى النعب تاعي حساها تسببتها إمن كدولة ده ay u taageeraan ee awood badan loo siiyo ay tahay kaliya in islaamka lagu xumeeyo oo islaamka muqaddasaadkiisa iyo dhulkiisa la qaato la boobo iyo in maalka iyo xoolaha ay yahuudu leedahay laga faa'iideysto sababtoo ah hadda koorba yahuudu tashadeeno inay dhaqaalaha adduunka iyo maamulka adduunyada ay gacanta ku dhigaan si ay dunida u maamulaan wal ciyaadu billahi rabbil alamin marka waxaan rajaynayaa inaad fahamteen erayga Israa'iil waxa yahuudu uga jeedo iyo macnaha rasmiga ah ee uu leeyahay oo ah adoonkii Ilaahay iyo iyagu sida ay u bedeleen si ay dadkan u adoonsadaan oo dadka bani aadamka u noqdaan maxay ummiyiin ama Gentiles dadka la leeyahay wal ciyaadu billahi rabbil alamin jazakumullahu khairan wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh